Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran war-saxaafadeed dowladda Puntland ee Soomaaliya waxay u tacsiinaysaa dhammaan qoysaskii dadkooda ku waayay iyo kuwii ku dhaawacmay daadadkii ka dhacay degmada Qardho 27 bishii Abriil 2020 si looga jawaabo khasaaraha baaxadda leh ee dadka reer Qardhood waxaa magaalada soo gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni. madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi ka shaqeeya gurmadka dadkii ku waxyeeloobay fatahaadda. guddigaasi waxa uu isu kala qaybiyay 4 qaybood oo kala ah guddiga isku dubaridka gurmadka qiimaynta iyo xiriirka hay'adaha, guddiga hawlaha guud wacyigelinta iyo kaabayaasha, guddiga dib u dejinta iyo qaybinta macaawinada, guddiga dhaqaale ururinta. guddiga dhaqaale ururintu wuxuu ka kooban yahay wasiirka maaliyadda gudoomiye, wasiirka ganacsiga xubin, xildhibaan Axmed Jaamac Diiriye xubin, siyaasi Cabdullaahi Sheekh Axmed xubin, siyaasi Cali Cabdi Awaare xubin, gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamed Caydiid xubin, ganacsada Jaamac Salaad Maxamuud xubin, Sheekh Fuaad Maxamuud Xaaji Nuur xubin iyo Mulki Cabsamed Xaaji Xuseen xubin. gudiyadaas waxay qabteen shaqo ballaaran si wax loogu qabto qoysaska ku waxyeeloobay fatahaadaas. guddigu wuxuu bilaabay qiimayn lagu sameeyay khasaarihii ay daadadku geysteen ayna qayb ka yihiin dhammaan hay'adaha UN-ka iyo kuwa caalamiga ah. guddigu wuxuu diyaariyay 200 oo tan oo raashin ah oo loogu talagalay 850 qoys oo ay keeneen dowladda Puntland, shacabka gobolka Bari iyo Nugaal. waxaa kaloo la diyaariyay agabka aan cunnada ahayn non-food items oo lagu talagalay qoysaskii agabkooda daadku ka qaadeen. guddigu waxa uu bilaabay bannaynta jidadka xirmay, wacyigelinta dadka si ay uga taxadaraan cudurrada ka dhalan kara qashinka biyuhu keeneen. guddigu wuxuu shir la galay maanta hay'adaha caalamiga ah si ay ula wadaagaan warbixin hordhac ah una xiriiriya qorshaha ka jawaabista waqtiga dhow. guddigu wuxuu sameeyay 3 akoon. guddigu waxa uu akoon ka furay 3 bangi oo kala ah Salaam Banki akoon lambar 8 eber 5577 eber, Amal Banki akoon lambar 1 eber 133 4 eber 534, Dahabshiil Banki lambar GRW eber eber 8481. guddiga dhaqaale ururintu wuxuu magacaabay guddi hoosaad ka kooban culimo iyo ganacsato kuwaas oo kala ah Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf, Sheekh Daahir Ow Cabdi, Sheekh Maxamed Macallin, Sheekh Maxamed Godane Xoosh, Sheekh Maxamed Cabdullaahi Cabdulle, Sheekh Yaasiin Cabdullaahi Cali Daxaan, ganacsada Cabdikaafi Axmed Siciid, ganacsada Cabdullaahi Xirsi Cali Hogato, ganacsada Mukhtaar Maxamed Isticmaar iyo ganacsada Ismaaciil Cabdisalaam Warsame. waxaa kaloo jiri doona guddi kale oo qayb ka noqon doona ururinta dhaqaalaha. guddiga dhaqaale ururintu wuxuu sameeyay akoomadaas waxaa loogu talagalay wax kasta oo ah dhaqaale oo soo dhaca inay ku soo dhacaan 3 akoon iyo 2 akoon oo dambe oo ah sahal iyo mid dahab ah oo la samayn doono. waxaan u sheegaynaa ummadda islaamka ah waxa loo qabanaya reer Qardhood inay yihiin wax ah niyad iyo laga rabo iyo alla ka cabsi loo sameeyo. waxa muhiim u ah marka ikhlaas. waxa la rabaa qofku waxa uu bixinayo inuu Ilaahay wala niyoodo ayna gaadho dadkii loogu talagalay. waxa la diidayaa isbarbariyaac inuu dhaco oo akoomo kale la furo. waa loo sheegay shalay wasaaradda arrimaha gudaha way warqad bay qodhay. waxa la rabaa wixii khayra bixinaya dhaqaale inay ku soo shubaaneen akoomadan iyo 2 akoon oo aan gadaal ka sheegi doono. gudiyadan dhammaantood waxay ku shaqeynayaan akoomadaas. akoomada mas'uuliyadoodana waxa qaadaya guddigan anigu aan gudoomiyaha u ahay oo hadda aan idin sheegay iyo guddiga hoosaadka aan sameynay. waxa la rabaa in dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan reer Puntlandba ay ka qayb qaataan in la helo gurmad degdeg ah oo waxtar u ah ummadda reer Qardhood. waxa na soo gaaray lacag 1 milyan ah oo ay soo dirdhay dowladda federaalka Soomaaliya
waa uga mahad celinaynaa waa gurmadkii koowaad lacaga badan oo kalena waa ka rajaynaynaa lacagtaasi waxay ku soo dhacday akoonka dawladda waxaana lagu shooyaa bari akoonka akoomadan baa bari lagu wareejinaya haddii rabbi idmo aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Puntland siday isugu xilqaameen gurmadka walaalahood reer Qardhood wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu